nin baa hadda ka hor wuxuu reer bani israa'iil buu ahaayo muslim buu ahaa aakhirana waa rumaysnaa laakiin caasi buu ahaa dembiila oo dembi badan oo acmaal saalixa aan lahayn hase ahaatee maalqabeen buu ahaa khasluul arrin buu lahaayo caado u ahaydoo wuxuu odhan jiray dadku daymin jiray lacagta markaa dhallinyarada u shaqaysay wuxuu ku odhanayaa khadamkiisu wuxuu ku odhanayaa ordoo lacagtii deynta iga soo qaada dadkaan ku leeyahay ninkaad u tagteen hadduu muusir yaho iska bixin karo iga soo qaada walaakin tayaasaruu macahu hadalka u fududeeya oo ha ku dhibina haddii uu mucsir yahay oo uusan iska bixin karin oo la go'dayna tajaawazuu canhu iska cafiya lacala allah an yatajaawaza cana yowma alqiyaama waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu annagana yowma alqiyama iska keen cafiya intaasuu odhan jiray khadamkiisa saasay ku shaqayn jireen kii mucsirkaa iska dhaaf sayidkeenna iska dhaaf wey lacala allah an yatajaawaza cana ilaahay ninkii yowma alqiyaama uu keenay wuxuu yidhi maxaad camalood saalixood haysataa waxa ma haysto maa cindu aya camal saalix ilaahu arrintaasaan lahaa buu yidhi oo maxay ahayd dadkan lacag daymin jiray oo xoolahayga daymin jiray oo markaa haddii uu muusir yahayna tayaasaru macahu baan ku odhan jiray shaqaalahayga hadduu mucsir yahuusan iska bixin karinna tajaawazuu canhu lacala allah an yatajaawaza cana baan odhan jiray ilaahay wuxuu ku yidhi naxnu awlaa bihada mink annaga ayaa karamkaa iyo wanaagga kaaga awlaysan tajaawazuu can cabdii addoonkaygana iska cafiya adkhiluhu ljana jannada hata waxba ha fiirinina hada karam allah caza wajal bilmucaamala ayiba mucaamalada wanaagsan beri dhoweydna anoo maka jooga masjid yaroo meesha aan deganahay xaafadda casiiziya ayaa salaaddii casarkeena tuji dhahe waan tujiyey masaajid wey kitaab meesha yaalla oo fadaa'il alacmaal ku yaalla oo acmaasha fadligeeda ka sheekaynay ayay dhaheen sheekhii imaamka noo ahaan jira noo akhri jiray adna noo akhri kitaabkii baan akhriyay xadiidkaana soo baxay uguma talagelinba xadiidkaan akhri waan akhriyey oo xoogay tacliiqaasaan ka bixiyey in ilaahay wax weyn dhigay tajaawuska iyo fadliga iyo ixsaanka bayna annaas in ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr fara badan uu dhex dhigay oo jannadiiba ay ku geyn tii baan ka hadlay nin baa istaagay wuxuu yidhi yaa sheekh ويا جماعة كلي أشهدكم أن لي على فلان ابن فلان مقعس شيء 80,000 تجاوزت عنه لعل الله أن يتجاوز عني يوم القيامة waxaan idinka markhaati gelinayaa buu yidhi hebel siddeetan kun baan ku leeyahayo inaan ilaahay dartiisu cafiyey in ilaahay anigana i cafiyey igu duceeyey caafi allahu canka wallahu akbar baa layidhi waa loo duceeyo ku kala isna istaago wuxuu yidhi anigana hebel baan lacag ku leeyahay wa ana cafawtu canhu kadalik anigana waan cafiyey kii cajiib buu sheego wuxuu saa u yeelay aan u yeelay buu yidhi waxaan ka baqay buu yidhi haddaan hoosta aan naftayda uun aan arrinta ku siraysan lahaa oo ninkii odhan laha waan ku cafiyey waxaan ka baqayaa buu yidhi naftu waa naf shaydaano inay igu soo leexato hadhow bukhligii war waxaan maca wada cafin kar ha isrogo war waxaan ma wada cafin kartide marka saasaan idiin markhaati geliyey buu marka hadalka insha allah waa igu dheeraaday maqsuudkii ujeeddada insha allah ilahay khayr allah idin siiyo kulanka wanaagsaneed isugu timaadeen diinta ilahay aan u dadaalna insha allah kulley sheekha baabu tashkiil iyo khuruuj fii sabiili illahi iyo sidaad waktigiina u ratibi lahaydeen bayna addiini waaddunya bayna alxayaati waalaakhira sheekha insha allah inoo yarmarin doona oo dee kolley aana ka munadimka yaana ka hor dhicine laakiin waxaan insha allahu tacaala kulligeen aan saaka aan halkan isku waaninaynaa naftayda baan ka bilaabe in aakhira ay aham shay kuu noqoto in aad saalix mustaqiim salaadaada dikrigaaga awraadaada iyo khayrkaaga iyo ku xidhanka ilaahay iyo diinta ilaahay u shaqaynteeda in aad marmarka qaarkiis fasaxa iyo fii sabiili illahi aad u baxdaan oo ma garanaysa aad ka faa'iidaysataan khayrkaas ilaahay idin siiyey nicmada alla idin waafajiyey baan isu soo jeedinayna allah yuwafiqna waiyaakum lima yuxibuhu wayardaa رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا